بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno waxyaabo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan ka hadlayaa video aan hore idinka ballan qaaday oo aan ka mashquulay oo aad isoo weydiiseen sida u samaysan lahayd face wash ama waji dhaq natural ah gurigaaga ugu samaysan lahaydeen. Marka waxaan idin la share gareynayaa alaabtii aad ka samayn lahaydeen. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxa ugu horeeya u baahantiin waa saabuuntan nus bakeeri aan ka isticmaali doonaa. Castile soap la yiraahdaa waa waxa xunbada keeni doona. Waxaan kaloo u baahanahay vegetable glycerin oo loogu talagalay maxay ahayd inay skinka nafaqayso. Waxaan kaloo isticmaali doonaa aloe vera gel oo aan ka isticmaali doona hal qaado. Waxaan kaloo isticmaali doonaa saliidan oo ah jojoba oil oo skinka u fiican maqaarka u fiican oo maadaama saabuun la isticmaalayo saabuuntan la isticmaalayo maqaarka sida aan wada ognahay saabuunta way qallajisaa marka tan maqaarka markay saabuunta qallajiso waa inay nafaqayso waa saliid. Waxaan kaloo ku darsan doonaa vitamin E oil oo aan ka isticmaali doono nus qaado. Waxaan kaloo ku dari doonaa frankincense oil. Haddii aadan jojoba oil haysanin dadka qaarkood jojoba oil meelaha adduunka oo dhan lagama wada helo waxaad isticmaali kartaa saliidan oo ah olive oil ama macsaro saliida macsarada ama saliida qumbaha ama avocado oil any saliidaad isticmaali kartaa. Waxaa la rabaa wax jidhka nafaqeeya oo dryness-ka ka ilaaliya. Waxaan kaloo u baahanahay dhaladii aan alaabteena ku shuban lahayn oo ah dhalo saas meeshaas oo kale leh oo saabuuntu si ay uga soo baxdo. Waxaan kaloo u baahanahay ingredient-ka ugu horeeya ugu muhiimsan oo aan u baahanahay waa biyo hal bakeeri oo biyo ah. biyahan waa distilled water. Distilled water waa biyo filtraysan. Haddaadan haysan biyo aad karkarisay oo aad qaboojisay isticmaal. Marka aan bilowna hadda hawshii waa hal bakeeri oo biyo filtraysan ah. Waxaan ku daraynaa nus bakeeri oo madaan ah. nus bakeeri Castile soap ah. waxaan ku daraynaa vegetable glycerin hal qaado. waxaan ku daraynaa aloe vera gel hal qaado. saliidii jojoba oil ama saliidii aad heli kartid. saddex qaadaan ku daray. wax yar oo vitamin E-ga ah. frankincense-ka waa iga dhammaaday meeshuu kasoo dibdhibcaya halkan aan ka dibcinayaa maanta intaana ugu dambaysay xooga dhowr dhibcood intaad jeceshahay ilaa 10 ugu badnaan. alaabta hadda diyaar waaye waa la isku qasayaa. marka isku qasno dhaladeenaan ku shubanaynaa. dhaladii waa tana. dhaladaas uu noqday. furkaan aan ku xiraynaa. waa kaasa waa tanaa bahashii markaan ku shubay dhaladii saanay u eg tahay. halkaasaa ka isticmaalaysaa mudday kuu oolaysaa. marka maxay ahayto ingredient-kan aan isticmaalay oo dhan run ahaantii kuma khasbanidin. marka aad barataanba halkan sida loo sameeyo waa fahmi doontaan idinkaa ingredient-ka kala badbedelin doona. laakiin base-ka ingredient-ka base-ka ah waa shaambadan ama saabuuntan Castile soap kala dhaho iyo saliid Joyce-kaaga ah oo aad ku moisturize garaysid iyo vitamin E iyo any maxaa dhahaye any essential oil guriga ku yaala ku darsan kartaa kuma khasbanid. almuhim waa saabuuntan iyo dhowr qaado saliid Joyce-kaaga ah inaad isku darsatid. intaas horta important ah. essential oil aad ku carfisatid ama aad ku qurxisatid haddaad heli kartidna waa fiican tahay.
waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen ay idin sahlanaan doonto sida u samaysan doontiin markaa samaysataan waxa aad ka aragtaan ila soo share gareeya dadkana la share gareeya daawasho wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmatullaah